Somalia and the African Union. I request. وحسن حسين حاجي وزيرك وزارة gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qayb ka ah shir muddo 3 maalmood ka socday magaalada Muqdisho kaas oo looga hadlayay xilliga kala guurka iyo sidii ciidanka xoogga dalka ay ula wareegi lahaayeen amniga guud ee dalka marka ay Soomaaliya faaruujiyaan ciidanka howlgalka AMISOM shirkan waxaa ka soo qayb galay u qaabilsanaha arrimaha Soomaaliya ee qaramada midoobay madaxa howlgelinta ee AMISOM safiirada dalalka Ingiriiska iyo Turkiga la taliyaha dhinaca amniga ee xafiiska ra'iisul wasaaraha agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo laamaha kala duwan ee ammaanka ee dawladda Soomaaliya waxaana ujeedada shirkan uu ahaa ka arrinsiga hanaanka loo wajahayo qorshaha kala guurka ciidanka u qaabilsanaha arrimaha Soomaaliya ee qaramada midoobay James Iswan ayaa ammaanay howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku xaqiijinayaan ammaanka dalka waxaana uu dhiirigeliyay doorka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ay ka qaadanayso soo celinta amniga dalkeena requests the African Union and FGS to conduct a joint update to AMISOM's concept of operations. ugu dambayna wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji oo soo xiray shirkan 3 maalmood ka socday Muqdisho ayaa ka waramay dadaalada xooggan ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ay gelisay tababaridda tayeynta iyo qalabaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana dhinaca kale uu ka hadlay qorshe si wada jir ay uga wada shaqaynayaan fulintiisa ciidanka howlgalka AMISOM iyo dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga kaas oo ku qotoma hanaanka kala wareega Forward to the reading of the